بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مدن فيصل علي ورابك قدومية حزبك وعد حبنها كنت دفرنته لبدا حزبي مدنياشا برلمانka cusub ee ka soo qayb galay ee ku soo baxay doorashadii ee labada xisbi ee mudanayaasha kaydka ah ee labada xisbi ee aan ku soo bixin barlamaankii maanta ee dadka kale ee sharafta leh halka isugu yimid ee cid walba leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalayaal waxaa sharaf weyn iyo qiimo noo ah inaanu xafladan aad iyo aad u qiimaha badan ee halkan maanta la isugu yimid aanu idinkala soo qayb galno. waxaan u arkaa xafladan inay tahay mid taariikhi ah, mid ah ama u horseedi karta waa cusub oo dalka Somaliland iyo hagista siyaasaddiisaba u dhashay ayaan ilaahay ka baryay inuu noqdo. xafladani waxa ay daaran tahay, waxay muujinaysaa in labada xisbi ee mucaarad kulmiye u cid ay ku bahoobeen oo isugu yimaadeen inay toosinta maamulka dalka hagista barlamaanka cusub iyadoo danta ummadda la eegayo ay meel uga soo wada jeestaan. taa macnaheedu ma aha sidii walaaladii iiga horreeyay ay yidhaahdeen oo ka mid ahaa faysal cali waraabe iyo mudanayaashii ka horreeyaba, ma aha isu imaatikan iyo wax wada qabsigan ay labada xisbi isugu yimaadeen ma aha mid daaran in dhibaato ama xumaan dalka iyo dadka loo horseedo. waalidkeeda waxa weeye in wanaag iyo sharci hagaagsan iyo nidaam hagaagsan iyo dimuqraadiyaddaba oo saxa oo danta ummadda u adeegta ee la isugu yimaado oo wax loo wada weeye. horta marka ugu horreysa ayaa dhaweyta waxaa hadlay madaxweynaha shalayta ayaa filaya inay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland daahir yaala kahay shir jaraa'id uu qabtay oo aan islahaa wuu daahay oo ummadda ku hambalyeynayay doorashadii bil ka hor dhacday oo aan filayay waa ka baryay inay ahayd. waxaan isagoo madaxweynihii dalka ah aan ku rajo weynaa ama ummaddu ka filaysay haba iska daaye haba la daahe inuu ummadda iyo dadka iyo axsaabta iyo dalka oo dhan ugu hambalyeeyo sidii dunidu yeeshay, axsaabta kale yeeshay, dadweynuhu yeelay hawshii aad u cuslayd ee qaranka reer Somaliland uu ka soo baxay, doorashadii uu nabadgelyada kaga soo baxay, hareeraha la isqabsaday, magaca iyo sharafta ummadda u soo haysay. occasionka ama waqtiga umaan arkaynin mid istaahila catow. madaxweynuhu aad iyo aad buu cataabay, aad buu uga sasay odhaahyadii axsaabta mucaaradkii ay lahayd ama dadweynuhu meeluu joogaba uu lahaa, taasoo ahayd in doorashadii maanta ummaddu ka soo baxday ay muuqatay in dadweynihii u codeeyeen labada xisbi ee mucaaradka ah, taasoo laga dheegan karo ama laga fahmi karo inaan ummaddu raalli ku ahayn sida uu maamulku maanta u socdo, oo ah mid tilmaamaysa in loo baahan yahay wax laga bedelo. intaa weeye inta uu aad iyo aad u dhibsaday, wax intaa ka shisheeyana ma aanaan lahayn. madaxweynuhu hadalladiisii
anigoo aan ceeb iyo xumaan midda ka sheegaynin waxa uu dhadhamaysay sida marar badan halkiisa ka dhananta 3 sano ka bacdi in aanu wali yaqiinsan inuu madaxweynaha yahay kalsooni isku qabin oo mar walba ku celceliyo aniga madaxweynaha aniga 3 sano ka hor ummaddu dooratay hadday ku dooratay imankana way ka codayeen madaxweyne waanu ku hambalyeynay in lagu doortay 3 sano ka hor iminka adiguna waxaa wanaagsaneyd inaad iimaansato in dadweynaha ay buujiyeen inaan maamulkaagii muddadaa soo jiray inaanu dadka raali gelin ay ahayd inaad hambalyo kulligeen dadweynaha iyo innagaba ayna wada hambalyeyso waxbase intaan kuu dhaafi mayno qof waliba kaskii buu hadlaa midda labaad waxa ilaahay nala qabtay ee ummaddu shacbigu shaqaystay ee horumar leh ee dimuqraadiyad leh ee nooc kasta ee nabad leh madaxweynuhu keligii baa tuurta u ritay marka uu dimuqraadiyadda ka hadlaya doorashooyinka kama aanu hadlin inuu ahaa doorashadu wax sharci ah oo dastuuriya oo uu cid waliba ku qasbanayd in doorashadaa la qabto ummadda iyo axsaabta iyo dadka iyo dunidoo dhana ay filayeen in la qabto wuxuu mar walba u hadlaa sidii ay tahay hadiyadu isagu bixiyey oo gacanta ku hayay oo haddaanu isagu joogi lahayn aan qabsoomi lahayn malaa wuuba la yaaban yahay in dimuqraadiyadda intaa leegi dalka dhici karto intaa halkaasaan ku dhaafaya markii ololuhu socday doorashooyinku waxaa had iyo goor ale hadalhayntayada ka mid ahaa xisbi ahaan annaga iyo walaalahayaba intii aan maqlayay marka wax kaleba laga yimaado haddii aan markaa dhaliil dawladeed iyo toosintiiba aan lagaba hadal danta ummaddu iyo geedi socodka dimuqraadiyaddu waxa ay ku jirtaa oo u fiican ummadda cidda markaa maamulka gacanta ku haysa maahe in xisbiyada kale ay hoggaanka u qabtaan ama si ay u timaado tawaasun u yimaado in xisbiyada mucaaradka ay ku bataan ama culays ku lahaadaan ama ay miisaan munaasiba ku lahaadaan golaha baarlamaanka masajkaa ama fariintaas waxaad moodaa inay mid gudubtay tahay mid xumaan loogala jeeda maaha cadaaladdaa ku dhisan isu dheelitirkaa ku dhisan muxuu ahayey in dawlad aan qaabkii la doonayo u dhaqmayn ee siyabo badan sharciyadda uga booda ama uga boodi karta hadday isku hubsato awood aad iyo aad u badan oo ay aragto cid soo waabinaysaa inaanu jirin sida qura ee lagu toosin karaa ee lagu xakamayn karaa waa iyada oo uu tawaasun ama miisaan noocaasi u yimaado kiina maanta wuu yimi walxamdulilahi wa rabbil caalamiin waxaanu leenahay sida walaaladii iga horreeyey kulligood ay u yidhaahdeen nimankii golaha wakiilada ka ahaa ka tirsanaa ee halka ka hadlay labada xisbiba u hadlay iyo intii kaleba sida u tilmaameen maanta maaha ujeeddada labada xisbi iyo xafladda tan iyo isu imaatikoodu iyo wada shaqayntoodu mid ha la xumeeyo uduba maaha mid madaxweynaha ha la xumeeyo maaha mid maamulka ha la xumeeyo maaha waynu ogsoonnahay waxyaabaha badan ee ka weecday ama ka leexday jidkoodii ee maamulkii dawladda uu ka mid yahay musuqmaasuqu uu ka mid yahay sharci darrida dalka lagu dhaqaa ay ka mid tahay qarsoodiga badan arrimo badan oo ay ahayd in baarlamaanka la hor keeno oo uu xaq u lahaa oo aan la hor keenin hadday heshiisyo duwal lala galay tahay hadday heshiisyo shirkada lala galay tahay hadday tahay miisaaneedaha qayb ka maqan hadday tahay xisaab celino fara badan hadday tahay sharciyo badan oo noocaas haddii ay tahay oo dhinac kasta taabanaya cadaaladda oo taabanaya adeega bulshada hawlihii ay ka hadlayeen labadii guddi ee halka kan shaqada wadaahiyey labada xisbi ay tilmaamayeen hawlahaas oo dhan toosintoodu waxay u baahan tahay
برلمان ضمير كيس بوحو حبليسة تعليم أقون ودرنبا كلها انتهي وحان آدي وآمسانة هاي وان مركز وهم بليين يا أحسابت السدح ده حزبيبا مشرحين تيكسوا قشي منطقة حبناها برلمان كعصب وحان وآمسانة هاي إنه واعسوا بالدلك الرئيس سومالان ورنشي وحان لا هاي ما أنت ما شفتوا سبب إسئماتك هذا اللي بدأ حزبي يوري شقين تودا عدك لأوغشة كده أما الله أركو إن حمان لو تشريو وحكروا عن لا هاي ولا لها يجا كلا كتر سام حزبي قعودب يجوا بكمدا وحن خباسيني كوي جهريبا ويلهدين إن أي كقيب قلي دوران حل كسنة هذا أي حاجة استعدلك أي كقيب قلي دوران وحكروا عن لا هاي لبدا حزبي وحوى قبسة كود معناه ما هو يسكم المال وحال سوء أديكسانيا والله ودا شقينيا وحلو ودا قبنيا ودانتا مصلحة أمتنا هلك كان هذا الذي شري لقصه قاضي وحكم ذها إن أنا تدو مقعوني هجانك برلمانك طبعا برلمانك يسوي هجانك يسدورانيا ومد قف كستا قرانيو هل كان أي رمان تفردنا لقو دوران مايو وحان سوق الدين لبدا حزبي هدارون هاي وانو كوه الشيني ولا باقي مال ندوحا ويه هجانك برلمانك سو تشيرينتا أي لبدا حزبي يسكون رعسيهين يسكون آمنين إني أسوى بندقان إني مشارح ونقضى هجامتها قولها وامد وحكروا أنو كوه الشيني مبادئ قضاء أساسي أو كمدة توسينتا برلمانكو وكوكعي دونه توسينتا سياسة دقنكا مانتا دالكو هيركا أمرية توسينتيسا كو ونكسا مركا عربها أنا كو شيني كوا ويه وحا أنا مركا لكو علينا أنا قو كل جيدي ورهبات نقيا ولالك فيصل يحبنه يسكرا يحبناها كلا يقود لفرينتا لبدا حزبيبا iyo dadka martida sharafta baan ugu mahadnaqayaa in xafladana ay tahay oo daaran tahay mid muujinaysa is-aamin wada shaqayn danta ummadda ah waxa loo fayday yahay ee loo socdaana inay tahay wax toosin ee ahayn wax dumin madaxweynena waxaan leenahay madaxweynaha hashakiin waxba habiqin wax dhibaato oo lagu geysanayaa ma jirto impeachment هذا كبقى يصير برنامج كم جبتوا كل هالكنتي اللي قاعد تاد ودنا فرتك جاي زي تاد هاي أدنى إلهي وحن كبر إياه إن هذه مكان واحد تاكم متيسر أدنى إسكايل على الدكتور أنا كل دوران ماينو